kusoo dhawaada war wixii caalamka inaga soo gaaray oo aad kala socotaan Bulqaas Media waxaana idin la socodsiinaya Cabdirasaaq Bulqaas. mahadsanid deeqasona. dadka degan xadka Kenya iyo Soomaaliya ayaa ka cabsi qaba dagaal ka qarxa halkaasi xilli wali iminka ay taagan yihiin oo aanan wali xal muuqda laga gaarin xiisadaha iyo khilaafka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya. waxaa jira walaac soo taraya oo laga qabo in xiisadaha u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya ay ka qarxaan dagaal, taasi oo ay ugu wacan tahay ciidamada military ee lagu soo daabulay xadka labada dal. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ciidamo u dirtay magaalada xadka ku taala ee Beled Xaawo, halka ciidamo ka socda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland oo xiriir wanaagsan la leh Kenya ay ku sugan yihiin magaalada u dhow Kenya ee Mandera. maxamed macallin maxamuud waa senatarka ismaamulka Mandera waxana uu sheegay in dadkiisa aysan u dulqaadan karin cilaaqaadka xun ee diblomaasiyadeed ee labada wadan. ma doonaya xaalad ay labadan ciidan ay dagaalamaan oo nolosha dadkeena ay khatar geliyaan, ayuu yiri senatarkan. boqolaal ka mid ah dagaalyahanada xulufada la ah wasiirka amuraha gudaha ee Jubbaland Cabdirashiid Janan ayaa ku sugan magaalada Mandera muddo bil ah. bishii Maarso ee la soo dhaafay ciidamadani waxa ay weerar xadka ka baxsan ay ku qaadeen Beled Xaawo, halkaas oo ay ku dileen 10 qof. maalintii Talaadada ee asbuucan dadka degan magaalada Mandera ayaa isugu soo baxay wadooyinka iyagoo ka dalbanaya ciidamada Jubbaland in ay ka baxaan Mandera oo ay joojiyaan khatarta ay gelinayaan dadka deegaanka. ciidamada ammaanka ee Soomaaliya ayaa Khamiistii shalay ku dilay 7 xubnood oo ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab howlgal ay ka sameeyeen magaalada Garbaharey ee gobolka Koonfurta Soomaaliya ku yaala ee Gedo, sida uu xaqiijiyay sarkaal ka tirsan dowladda Jimcihii maanta. Aadam Cabdi Xirsi oo ah taliyaha howlgallada ee Garbaharey ayaa waxa uu sheegay in ciidanka ay heleen xog ku saabsan joogitaanka maleeshiyada ee tuulooyinka magaalada u dhow. ciidamadeenu waxa ay u ruqaansadeen goobihii ay ku dhuumaaleysanayeen maleeshiyadooda, waxaanuna dilnay 7 ka mid ah dagaalyahanada Al-Shabaab intii uu socday iska hor imaad adag oo aanu la galnay xag jiriinta, ayuu yiri Xirsi. dhacdadan oo ah tii ugu dambeysay ayaa timid iyadoo ay socdaan howlgallo isdaba joog ah oo ay ciidamada Soomaaliya ay kula dagaalamayeen dagaalyahanada Al-Shabaab gobolada bartamaha iyo koonfurta, halkaas oo ay maleeshiyada wali ay gacanta ku hayaan dhulka miyiga ah iyagoo fulinaya weeraro gaadma ah iyo miinooyin lagu aaso dhulka. gaari bas ah ayaa waxa uu ku qarxay magaalada Nashville, Tennessee ee Mareykanka subaxnimadii hore ee Christmaska, taasi oo boolisku ay u maleynayaan in ay tahay fal ula kac ah. saraakiisha ayaa goobta yimid wax yar kadib 6dii subaxnimo waqtiga dalka Mareykanka ee Jimcihii maanta, kadib markii ay maqleen warar sheegaya israsaasayn. booliska ayaa sheegay in gaariga qarxay uu baahinayay digniino ku saabsan in uu qarxi doono markii ay boolisku ay goobta ay soo gaareen, iyadoo wax yar kadibna uu qarxay basku. 3 qof ayaa dhaawacantay, midkoodna aan halis ahayn, waxaana loo qaaday isbitaalka sida ay saraakiishu ay sheegeen. dhismayaal iyo geedaha ayaa waxyeello soo gaadhay, waxaana la arkayay qiiq hawada isku tolaya bartamaha magaalada Nashville. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in Turkiga uusan si buuxda u jarin xiriirkii uu la lahaa Israel, isla markaana uu sii wadayo la shaqaynta sirdoonka dalkaasi. dhibaatada ugu weyn ee hadda jirta waxa ay ku saabsan tahay shakhsiyaadka ugu sarreeya, ayuu yiri Erdogan oo saxaafadda la hadlayay salaadii Jimcaha kadib ee maanta. siyaasadda Falastiin waa khadkeena cas, suuragalna ma aha inaanu aqbalno siyaasadaha ka dhanka ah Falastiin ee Israel. falalkooda naxariis darrada ah ee halkaasi ka socda waa waxaan la aqbali karin, ayuu yiri Erdogan. haddii aysan jirin arrimo heer sare ah, xiriirkeena aad buu u kala duwanaan lahaa, ayuu sii raaciyay. si kastaba ha ahaatee, madaxweynaha ayaa xusay in Turkigu uu rajaynayo in uu wanaajiyo xiriirka uu la leeyahay dalkaasi. waxaan jeclaan lahayn inaanu xiriirkeena aanu gaarsiino meel wanaagsan, ayuu yiri Erdogan. ilaalada xeebaha Greega ayaa koox muhaajiriin qaxooti ah oo ay ku jiraan caruur waxa ay ku riixeen doon nooca buufinka ah dhanka biyaha Turkiga, waxayna kaga tageen bartamaha badda Aegean, sida ku cad muuqaalo ay heleen ciidamada ammaanka ee Turkiga. ciidamada ilaalada xeebaha Greega ayaa si xoog ah ugu wareejiyay muhaajiriintan soo galay Greega doon nooca buufinka ah, deetana waxa ay kaga tageen bartamaha badda kadib markii muhaajiriintan ay yimaadeen cidhifka koonfureed ee jasiiradda Lesbos iyagoon wax ogolaansho ah haysan.
taliska ciidamada badda ee Turkiga ayaa duubay dhacdadan intii ay socdeen sahaminta iyo howlgallada dabagalka ee agency. ciidamada badda ee Turkigu waxa ay badbaadiyeen muhaajiriintan qaxootiga ah kuwaasi oo qarka u saarnaa in ay u geeriyoodaan duruufaha qallafsan ee ka jiray badda, waxayna u soo daadgureeyeen xeebta. dhowr qof ayaa ku dhintay waqooyiga bari ee waddankaasi Nigeria kadib markii dagaalyahano ka tirsan Boko Haram ay weerareen tuulo u badan Kiristaan isla markaana ay gubeen kaniisad habeen ka hor ciidda Christmaska. ila deegaanka ah ayaa sheegay in ugu yaraan 11 qof la dilay sida ay qortay wakaaladda wararka ee AFP. dagaalyahano ayaa u ruqaansaday deegaanka Pemi oo ka tirsan gobolka Borno iyaga oo wata gawaari waaweyn iyo mootooyin isla markaana si aan kala sooc lahayn u tooganaya dadka, sida uu wakaaladda wararka u sheegay hogaamiye maxalli ah. Pemi waxa ay u dhowdahay Chibok halkaasi oo 200 oo gabdho iskuuley ah laga afduubtay sanadkii 2014. taariikhyahan u dhashay Ruushka oo qirtay inuu toogtay una kala jaray ardayad saaxiib u la ahaa deegaanka St. Petersburg ayaa jeelka loo taxaabay xukun 12 sano iyo badh ah. Oleg Sokolov oo 63 jir ah khabiirna ku ah dagaalada Napoleonic ayaa waxa uu qirtay dambiga dilkii Anastasia Yashchenko oo 24 jir ah. waxaa la helay isagoo sarqaansan oo wabi ku dhex jira bishii November 2019 isla markaana shandad ku ritay gacmaha Mrs. Yashchenko oo ah gabadha uu dilay. dhageystayaal, warkii caalamka oo aad kala socoteen Bulqaas Media intaasi ayuu inooga egyahay. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka Bulqaas Media subscribe saar, sidoo kalena bogga Facebooka ee Bulqaas Media follow dheh. haddii aad tahay macmiil soo noqday hanaga iloobin in aad like-ta, share-ta iyo waliba wixii markaasi fariimo ah aad noogu reebto dhinaca commentiga. aad baad u mahadsantihiin.